السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سودا وهذا ميل بتدويد كذا سوتهين وواسك قبلوها قبلو فارح ولا الكيس معوكي كيرا بشير بالله متناين حسجور سعيب كيس قرشوا دريس كيس كنا لو راونا قرسي كوسا هاجا بكجا لقتي مع الشورية بناوين شنطة بغبوري هذه وحندون يارين لبضان مالين سوشيال ميديا قبصتي إن معنا أنا قبلوها فكر كي كديبتو on dul istaago oo umada Soomaaliyeedna waxyaabo badan aan u ifiyaan doonaya marka koowaad soo dhawaada waa waaskugaasyada weeyadiyad labada maalin social media waxa qabsaday nin dhalinyar ah oo la yiraahdo Baabajey oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku yaqaanaan inuu fasiro filmaanta Hindiga asagoo dhalinyarada ka qosolsiiyo ninay magaranaysaa dhalinyaradu aad u jecel yihiin weeyaan intaana waxa u sii dheer waa nin macnaha ilaahay magaranaysaa sida anagu uu lixda lixaad noogu dhameystiray uu sanasaga ugu dhameystirin bulshada Soomaaliyeedna ay aad u jeceshahay oo magaranaysaa baraha bulshada la isla dhaxmarayo asagoo loo dhaaranayo asagoo magaranaysaa loogu caga jugleynay in nolosha la dhaafirayo oo group gooni ah oo social media soo galo oo ugu horeeyay Daahir Cali Sow ay handadayaan waxaan rabaa marka umada Soomaaliyeed social media soo gasho bal inaan arintan inta aan xogteeda soo aruuriyay bal inaan la wadaago kolka koowaad waxaan doonayaa in aan idin daawadsiiyo inaan saaxiibanahay oo mucaaradkii madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo kamid ahaan jiray inta badan aniga aan qabiil ku baran oo wiilkan hadda aan ka hadlayay Baabajey marka ayada ah handadayo oo u dhaaranayo waxaan gadaalna idinka tusi doonaa sababta loogu dhaaranayo iyo waxa keenay in Baabajey loogu dhaartay in Muqdisho lagu dilo yaan ayadana idinka dabageyn doonaa oo daawasiin doonaa marka hore waxaan rabaa inaan idin tuso Cabdiqaadir Boos oo magaranaysaa mucaaradka ka tirsanaa jiray oo u dhaaranayo wiilkan hadda ka hadlaya Baabajey oranayo macnaha adiga oo Muqdisho joogo iyo waxyaabo magaranaysaa markaasi qabyaalad salka gelinayso asoo ugu hanjabay bal waxaan rabaa marka hore inaan wax yar idin tuso bal ila daawada kadibna waxaan isugu soo noqonaynaa oo rabaa inaan tuso Baabajey sababta loogu dhagayahay iyo reason keenta in macnaha noloshiisa la cabsi geliyo marka wad bal Cabdiqaadir Boos wax yar ila daawada Clipron ka soo qaada cajaladiisa adoo xamar joogtid gabar hawiye ah oo hiraabo abgaala aad ku culaadinay ka waran fikirkeeda ayadoo xamar joogto oo aad leedahay mar dambe kuma salaamayo war Baabajey ya xaniyaas ku siiyay Baabajey waxaad soo socoto ood kufto ood garguurato oo sibxato oo gacan ku baxdo oo gacan ku ma anagiyaa nagu soo degatay inaad gabdhaheena af laga deeso waxaan salayaa baraha Baabajey adigu nolol xamar ka martid miyaa markay 4 milyan oo caaboon aad gabdhahooda ku dhaxaynayso war ma xamanaada nolol ka rabin war ma jooharaada tagi doon war ma shakhsiga aad arkaysaan waa nin dhalinyaro social media soo galo wuxuu ka tirsanaa dhalinyaradii madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo dawladii nabadii nolol aad kaga soo horjeeday haddana taageerayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed sidaad arkaysaan wuxuu leeyahay Baabajey oo aan cajalada bilowgeeda idinku sheegay inuu yahay nin dhalinyaraduna aad u jeceshahay Muqdisho ku nool u maleeynaya inuu ku koray ama ku dhashay anigu taariikhdaas ma hayo laakiin dad reer Muqdisho ah filmaanta afka Hindiga Soomaali u bedelaan dhalinyarada Soomaaliyeedna aad uga qososhiyo oo nin lixda lixaadna anagu ilaahay noo dhameystiray aan asaga u dhameystireen oo nin curyaana weeyaan ninka sida uu ugu dhaaranayo qabyaalada marka ayada la leeyahay anagoo reer hebel ah ayaad magaranaysaa gabadhanada aflagaadeys marka waxaan doonaa marka inta aanan arinta Cabdiqaadir aanan ku dheeraanin waxaan rabaa marka inaan bal wiilkan Baabajey aan hadda ka hadlayo lagu dhagayahay oo ninkan hadda uu caga jugleynay arkaysaan waxa lagu haysto maxay tahay ma gabar buu caayay oo aflagaadeeyay ma gabar buu magaranaysaa cajalad ka duubay ma intuu social media soo galay buu gabar aflagaadeeyay bal umadu si ay u ogaato waxaan rabaa waxa lagu haysto wiilkan inaan idin soo daayo oo aad daawataan aad iyo Baabajey
waxay intaan cajalada sii daynin baan rabaa marka horeeto balse aad u fahantaan oo aad magaranaysaa programka iyo barnaamijkan hadda social media ka socday qabyaalada lugta la galay bal ina marka horeeto aan idin faahsiiyo baabjay gabar waxaa jirta la yiraahdo wiilo oo anigu maan daawan jirin laakiin asaga inta badan riwaayadaha la jilaysa brankyada waxa la yiraahdo youtube-ka lacagaha looga sameeyo la sameeyo oo saaxiibadiisa iyadoo isla soo caan baxayn weeyaan horta gabadha lagu haysto wiilada aad maqlaysaan aadeed waxaana marka inaan idin tuso baabjay oo bal ereyga lagu haysto iyo waxa uu yiri bal inaan wax yar idin siidaa bal daawada idinku maasan aad iyo aad shalay farmaajo wuxuu ahaa madaxweynaheena waxaan u helnay respect kalkaceel sharaf soo dhaweyn ciise iyo karaamo maanta ilaahay uma kasin xilka waxaa ka qaaday qof kaleete waa laga guuleystay weli sharaf iyo ciisadii iyo karaamadii waan u haynaa waayo waa madaxweynaheeni waddankeena uu hogaamiyey annagoona hogaamiyey kalkaceel kaloo naga keensaday qalbigeena ku weyn yahay madaxweynaha hadda qabtayna waan soo dhaweynaynaa sharaf iyo ciise iyo karaamo asagana nagu leeyahay annaga qofkii xilkeena noo qabto waxaan u muujinaynaa respect iyo hadal wanaagsan adiga maanta xil ma haysid laakiin shacabkaad waxaad u tahay role model micnaha gabar kaftankeeda qosolkeeda wanaaggeeda intaba la jeclaa ayaa tahay waxaad ku hadashay anagoo dhan waan dhegaysanay waana aragnay wax adiga ku fiican ma ahan qof sidaa arkaysaan waa baabajay oo markaas la hadlaya gabadha asaga markaas ay barankada isla sameynayeen oo wiilo la yiraahdo ma caayin ma uusan aflagaadeenin nolosheedana trade ma uusan gelin waxa uu ka hadlayay waxay ahayd in macnaha madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo laga guuleystay madaxweyne kalena uu yimid aysan habboonayn maadaama dee dad fanka ku jiray ahaayeen oo siyaasad ku jirin in laga qurxoonaa qaabka ay gabadha cajalo soo duubto markaasaan anigu fahmayo laga qurxoonaa inay madaxweyne farmaajo hadalla ka daba tuurto oo shacabka iyada ku xiraa aysan u fiicneen oo siyaasadda u fiicneen fanka iyo siyaasadda inta badan isma gasho waxa lagu haysto waa erayadaas uu yiri handadaadaas aad soo daawateen ninka boos uu magaranaysaa daba socdo waxaan rabaa marka inaan cajalad kale idin dhageysiyo oo cod ah waa daahir cali sow oo iyo magaranaysaa dhowr qof oo kaleeto oo markaasi qadka kula jiro waxaa kaloo kula jira marka yarkan baabajay waxaana lagu haystaa cajalada hadda aad daawateen uu leeyahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo sharaf baan u haynaa madaxweynaha yimidna sharaf baan u haynaa waa laga qurxoonaa inaad magaranaysaa adoo fanka ku jiro oo dadku ay fanka ugu taageerayaan role model u ahaa inaad siyaasadda gasho qof wax ka sheegtid waa laga habboonaa ereygaasa marka lagu haystaa qadka marka waxaa ku jira daahir cali sow iyo dhowr qof oo kaleeto oo markaasi oranaya anagoo beesha reer hebel ka soo jeedno gabadhanada iyaad wax ka sheegtay gabadhanada magaranaysaa social media usoo fariistay noloshaada trade baan gelinaynaa magaranaysaa waa inaad raaligelin bixisaa waa inaad waxyaaba aan macnaha dee maskaxda fiyow aysan markaa ogoleen barnaamij kale ii daba socdo oon rabaa marka inaan ummadda wax badan u fiyo marka waad waxaan rabaa bal inaad ila daawataan ood ila dhegaysataan baabajay oo markaasi magaranaysaa qadka intii la soo geliyey waa isagana uu leeyahay walaalayaal gabadha waxba kama oran haddaad hadda khadkii soo geliseen intan aan idinkula hadlayo iyaysan dad kale qolo kale iyo dad kale iyaysan ogaan markaas uu leeyahay ayaguna ay leeyihiin beel dhan ba ku jirto gabadhanada wax ka sheegtay gabadhana wax kama uusan sheegin waa cajaladaad soo daawateen cajaladaad aragteenna hadal khaldan kuma jiro gabadha iyo baabajayna waxay ahaayeen dad macriifo ah oo waxyaaba badan markaasi isla duubay marka waxaan rabaa inaad daawataan codka marka daahir cali sow iyo dhowr qof oo kaleeto oo markaasi qabyaalad magaranaysa isugu hiilinayo wiilkan soomaaliyeed oo magaalada muqdisho ku sugan la cabsi gelinaya la trade garay baan rabaa marka koowaad inaad la daawataan bal ila daawad marka wax yar ma fahanteen aniga wiilo haddaad doontiin qadka waa soo gelin kartiin waa weydiin kartiin waxaani keligii ma fahanta waxaani keligii iska samaystay maaha gabadhaas walaasheed ah si indhahan ugu soo jeedo darteeda arrintan uu sameeyey oo anigana wax walbo dusheeda ugu dhacan iyadana waxa ay rabta ee u hesho horta baabajaaha baan kaa qarinaayo may hadda hal xabaan kaa qarinaayo baabajay aniga hadda caawa soo maqlimayso codkayga dadka haloo duubo qof kasta oo daarood ama farmaajo taageersan aniga subscribe haygala laabto ma fahamte ayadana looma tuugaayo iyadana inteeda dadkeeda ku filan soomaali qabiil noqoto ma fahamte baabajay waxaan kaa rabnaa baliis wiilo soo geli qadka daasloogtii hanoo sheegto anaga wiilo uhiisana soo wacdo dhaysa baabajay wuxuu igu samaynayo laakiin anigana hal mid idinka codsanaa
maadaama si gooni arrintan idinkugu sheegay in aadan arrintan inteena aysan dhaafin maadaama adiga aad hadda ra'iisul group oo baa live ugu jirta baabije iyo gaar ah hadda ra'iisul group waa live looga jira live ku jirta qof kasta waa ku maqlay baabije su'aalaad weydiina waxaan group lama hawiyo dhanba ku maya ku jiraan baabije waa ku wada maqalnaa baabije waxa kaama saarayaan gabadha qadka soo geli daawa isla ogtiin gabadha ha ku maqasho gabar walaasheena baadishay rag bay sida marka aad dhageysanaysaan dadka meesha ku jiro ee wiilkana uu la joogo ee uu la hadlayo sida wanaagsan ayaguna ay handadayaan ayagoo markaa sheeganaya inay social media ku jiraan beel Soomaaliyeed ay magaraysaa social media ku jiraan wiilkani gabadha wada socday oo barnaamijyada duubi jirena hadalka soo daawateen wanaaga ah uu ku yiri asoo marka gabadha maadaama de macrifadiisi ay dad ugu xigtay yaa waxa la leeyahay waxaad caysay gabadhanada loogu handadayaa noloshiisi lagu qasbayaa in la bahdilo oo qaabka darkaysa loo dhaqmay farka waxaad arkaysaa oo dareemaysaa groupkan marka handadayo wiilkan iyo wiilkan inay isku qabiil ahayn anigu garan maayo baabajay beesha uu ka dhashay iyo qabiilka uu ka soo jeedo laakiin inuu nin majaajilaysta uu yahay filmaanta hindiga uu duubo ummadoo dhan way taqaanaa nin siyaasadda lagu bartay ma aha ila siyaasadda hadduu ku jiro la qabiilkiisa iyo reerku uu ka soo jeedo waan ogaaneen anigu garan maayo dad badanna garan maayaan laakiin halkaa waxaa ka cad macnaha groupkan aad arkayso hadda social media ayaga isla haysiinay xasan u campaign gareynay ummadda Soomaaliyeed qabyaalada kula dhex jiro laga yaabo ayaga qoysaskoodii reerahoodii inaysan magaranaysaa aysan caafimaad qabin ama uusan wanaag magaranaysaa aysan qurbaha la joogin laakiin fowdadan iyo buuqan iyo dhibaatadan meelahan baraha bulshada ee la isku arko aad dareemaysaa in dadku ku hanjoogaan inkastoo de behind the camera ay tahay behind the keyboard ay tahay oo magaranaysaa arrintooda aysan face to face haday noqoto aysan noqon karin inay magaranaysaa rag ama dumarka iska dhiciyaan laakiin waxaan dareemayaa wiilkan in la ciilayo oo wiil Soomaaliyeed yahay saan dareemiyana qabiil loogu booteenayo saan dareemiya caasimadiisa soo ku suganna hanjabaad loo sameeynaya marka waxaan rabaa groupkan daahir hadda marka uu hogaaminayo dhalinyaradan hadda aan ka soo sheekeeyay habeeniya maalin social media ku jiraan tusaale ninka la yiraahdo daahir cali sow habeeniya maalin macnaha waa nin siyaasadda ka hadlay inta badan dad baa dhageysto dad baa ku xiran habeeniya maalin YouTube-ka ama Facebook-ka wuxuu caayaa gabar Soomaaliyeed oo Minnesota degan oo ayadana magaranaysaa filmaantii riwaayadahan ku jirto oo ninaan saaxiibana uu qabo ilka casal la yiraahdo oo anigu dad ahaana aniga isugu xigno habeeniya maalin gabadhaas gurigeeda reerkeeda cideeda ka sheekeynaya macnaha anigu waxa is weydiiyay marka gabadhan hadda wiilka wax xun kama uusa sheegin oo wax ma garanaysaa dhibaato ama uusa ka sheegin just madaxweynaha farmaajo maadaama uu xilka uu wareejiyay madaxweyne kalena uu noo yimi walaalay maadaama fanka ku jirno wanaag samee yaa wiilkan lagu bursanaya noloshiisa lagu handadaya daahirkan hadda ka dhaxadlay meesha maqlaysaan daahir cali sow habeeniya maalin dhimca jokor oo rag la dhasheen ilma adeero leh dumaashi leh oo magaranaysaa gabarde sharaf oo la qabo oo xaase oo qabo ilka casho oo fanaan Soomaaliyeed iyo habeeniya maalin uu aflagaadeynaya caynaya marka waxaan rabaa markii aan su'aal weydiiyo wali barnaamij kale oo codadkan iyo waxyaabo kale idin soo wada aadiyad soo dhawaada si gudbiya cajalad waxaan rabaa markii aan weydiiyo daahir cali sow iyo cabdiqaadir booska iyo dadka macnaha qadka ku jiray ee wiilkan handadayo sida macnaha ay gabadha u garab istaagayaan oo leeyihiin gabadhanadaad wax ka sheegtay oo ninka loo handadayo ayagu niyadooda miyaysan ku jirin gabadhan nimca jokor ee habeeniya maalin uu daahir caayayo ee uu aflagaadeynayo ee uu magaranaysaa ceebaheeda uu social media u dhaxwado la dhax socdo in sida hadda ayaga u gubanayaan u dareemayaan in gabadh ayaga qabiilkooda ka dhalatay ama reerkooda ka dhalatay in macnaha wiilkan uu wax ka sheegay soo wax ka sheegay marka waxaan rabaa marka groupka inaan weydiiyo maxaad u maleynaysaan ragga nimca jokor la dhashay ama ehelka la ah ama qoyska ay ka soo jeedo waxa ay dareemayaan marka aad idinku dareemaysaan gabadhan wax laga sheegin oo intaas ku jirtaan oo magaranaysaa wiilkan maskiinka aad handadaysaan magaaladii uu ku dhashay caasimadeed aad magaranaysaa ka xigsanaysaan aad leedihiin magaranaysaa waa lagu dilayaa noloshaada ris ku jirto reer baad ku soo duushay gabadhooda wax ka sheegtay aad iyo aad marka waxaan rabaa inaan groupka weydiiyo nimca jokor iyo dadkooda waxa ay dareemayaan idinku ma ogaan kartaa laakiin hadda dareenteen marka gabadha iyadoo waxba laga sheegin aad tirahdeen waxba laga sheegay xaqiiqda dhabte nimca jokor ragga la dhashay iyo dadka ehelka la iyo ninkay u dhaxdo iyo ilmaadiradiis the same xanuunkaasay dareemayaan
laakiin de raganimo iyo soomaalinimo iyo dhaqankiibaa la isdhaafay oo ma garanaysaay laisku dhaafay oo laysaga dheereeyey igama suurtooda aniga inaan ma garanaysaa gabar beel kale ama reer kale ka dhalatay aan kastuumadeeda iyo rajabatadeeda aan wax ka sheego ceeb bay u tahay raganimadeeda iyo shakhsi ahaantayda si kasta oon aan view raadinayo ama aan dhaqaale ka doonayo social media igama suurtoodo gabar beel kale ama Soomaali ah inaan tan meeshan usoo fariisto anigu aan caayo oon lugaheeda ka sheekeeyay laakiin daahir iyo groupka ku taageeraya group ku daba socdo ee aaminsan social media in ma garanaysaay waxyaabo badan laga sameyn karo xisaab baa ka dambeynayso si toos baa la soo arkaya idinku wixiina waxaan u maleynayaa inay hadal taadiyad waxaana markaan arrintan hadda ka hadlayo dad baa waxay u maleynayaan qoblo wax uu iska sameynayo maya daahir iyo groupka uu watay ha biqlayso uu u bixiyay ama beesha magaceeda sheegan anigu ma aaminsani beesha ay sheeganayaan beesha muqdisho majority ka gobolada dhaxad degan in dhaqankoodu uu yahay inay gabdhacayaan in dhaqankoodu uu yahay gabdhaha kastumada ku dhagan anigu ma aaminsan inay dad macnaha u hanjawaan inay yihiin ma aaminsan laakiin waxaan waa social media dhaqaale raadinayaan midda kale tana waxaan rabaa intaanan hadalku uusan igu dheeraan waxaan rabaa marka ilka case oo fanaan Soomaaliyeed oo ah ma garanaysaay sayga Nimca Jokor oo ka hadlayo ninka daahir iyo groupkiisa inay xaaskiisa caayayaan qaabka marka uu u hadlayo yaa rabaa inaan idin tuso ninka la yiraahdo ilka case aad iyo dhageysta hadduu asagana ma faani karo laysanna ma haysto noloshu ka dhacay naagtiisa hadda la soo gabadha kala taganaata in adeerta hadda la soo diray videoga ugu dambeeyay hadda ku sheegay ayadoo dariska cusba ka qaadanaysa video laga duubay inkastoo aniga ma jecli dumarka laakiin sida uu xaaskaygu asaga u caayay oo dadka ugu soo watay ee gabdhaha haata gabdha ilma adeerada oo saacada intuu magac gabar absama u bixiyay hatta codkooda iska doon uu dhahay Soomaa anigana sidaasan suubina kaama daba haraya nin rag aadiya qofka hadda daawanayso waa ilka casaqays oo markaa ka gubanayo xaaskiisii gabadhiisii oo la caayayo aadiya sidoo uu sheegay aad arkaysaan kulli cajalada anigu message ahaan baan usoo gudbinaya macnaha ilka casaqada wuxuu leeyahay gabadha xaaskaygu daahir caayaya nin rag ma aha ima hor imaan karo waxaad soo aragteen daahir oo markaa hanjabayo la gabadhanada wax lagama sheegi karo gabadhanada ma garanaysaa lama aflagaadeyn karo yaa soo daawateen haddana waxaad arkaysaan oo dhagaysateen ilka cashe oo sheegayo afkiisa ka sheegayo in ma garanaysaa gabadhiisu daahir uu aflagaadeynayo oo caynayo oo dad asaga xigo dhagayso marmar social media iyadoo oo qabiilo la matalay laakiin haddana la isarursaday iyo dadku kala dhiig badayn anigu daahir iyo groupkooda hadda credit baan siinaya waa dad isarursaday waa dad ma garanaysaa isku tashaday social mediana ku jooga awoodooda ku joogo cidda ay bursanayaan ama u booteynayaan ayagu ma garanaysaa isku garab siinayo waxaad arkaysaa ilka cashe iyo dadka uu ka dhashay ama gabadha uu qaba xaaskiisa ee social media ku jireen aniga kamid ah hadda hadlayo in ma garanaysaa si uun aan u kala faanayno oo aysan jirin isku duubni ama social media lagu joogo ama ma garanaysaa gabdhaha ninka ragga waa inuu gabadhiisa difaacda ninka ragga waa inuu xoolihiisa difaacda aad arkaysid ma garanaysaa in hadda siduu ilka case sheegayo in rag iyo dumar asaga xigo oo beesha ogaadeen marka laga tago Soomaali kale xataa uu ka dhashay asaga inay soo rufiyaanayaan oo ma garanaysaa xogtiisa iyo macluumaadkiisa daahir u gudbinayaan anigu waan aaminsan arrinta ayada aad iyo aad waxaan dhihi lahaa kullayda cajaladan عشر هانو بدي كوسو قد بينيا أنا وعد عندكم مدة قل لكن أنا واحد وتسان دنيا وحنا مركنا ندي بقول نقضو ظاهر يجروب كيسو وتة دوما يرجع سو جرو ويل كالصوماليات وتوب جيب وسارية باب جي إن هنجبيان ولو قصبايو إن مجرى سهر الجلين وبي وليبا لو هنجبيو هدي معناها بيلها قاركود أما مدحوينها نوع عسكر هذا مقدسات جوكتيد وحاول جورجا وقصو دعيا ولا قدلا ياديان سوشيال ميديا بالجرا نول دلنا بدنا عكرة تكسو هذا يا أدي وحنا مركنا عند تصو بابجي ومركاسي لوجو هنجبيو هدي وإسكو دايو معناها قبل ريرها هذا نمكر أي شيكتين ظاهري جروب كيسا جروب كان دمر كرجع السجون جرو أي سوشيال ميديا قال كوسمستين مريكا إركوار كيسيا هنا أيوجو معناها أود كلين أما أيوجو لين حقيقة ضبط أيوجو ملها waxaan aqli baa la isdaafay nin walba waa caytami kara gabar wax buu ka sheegi karaa awradeedu ka hadli karaa laakiin nin walba ixtiraam iyo sharaf buu ilaashanay maadaama ay sharaftii ay ka tageen oo gabdha la qabo ee aflagaadeynaya kulli xisaab baa ka dambeyn doonta insha Allah ilka casana waxaan dareemayaa in ma garaysa sida uu sheegay rag asaga ehelaa ama dumar asaga la xoog bixinaya laakiin ku quus qaata daayir
gabdhihiisa suu difaacanayo gabdhihii ma garanaysaa asaga ehelka u ahaana ay isugu duuban yihiin marka ayada loogu hanjabayo ninkan baabajey marka waxaan rabaa inaad dhegeysiyo baabajey oo group intay gashteen loo hanjabayo oo weliba dil loogu hanjabayo oo weliba rag qaar ay leeyihiin sidii galgale qabiil galgale la dhaho aniga aan aqoon u lahayn laakiin aan u maleynay inay muqdisho degan yihiin oo dhibaato loo geystay yaan rabaa wax yaraan tuso bal ila daawada aad iyo aad فيديو بس انا كل شباب بيجي توسع قناه الدعوي ولا قاحره هذا مش شوي هذا سبسكرايب كرتنا قولكم هذا في بيتي بوصل الى بقولكم كفي ساعه بس سبسكرايب رالي تيك توك اسوق لي بكبخيا ها كبخي وايا أسر رالجلين وايا رالجلين haddana raaligelin halkan ka bixi raaligelin hadda halkan ka bixi beesha hawiye raaligelin عادي ظاهر رالي والله داف كوشيتا بوي داف وحي رالي قلنا اسمه عد رالي قلنا لك فيديو كبحي دارات كوبايا سيوي ها فرماجة انا اكتن وفكي ماذا هاي كوباد ليزا اصرع انا قبيل كيس افرماجة صرع انا ما محب فرماجة اشتكية وحي فرماجة وحكا بلق هذا اكو اتحامل اتاقيرا انها ينت الله بع سقال سعل الدلو ماذا حولك واحد مجراني وحي دقيق قال قلدي وهي قال قلان صح سنية او انا ضد نال دقيق او نال انه واحد باين aad iyo saad arkaysaan waa daahir qofku ugu dambeeyay hadlaya ee leh beeraha galgale anigu aqoon uma leeyahay galgale laakiin waxaad ajaladan hadda aan education ahaan aan ugu soo dirayo social media wax ka socdo idinka social media ku jiro anigu hadda daahir iyo groupkooda kuma dhegani hadda koor baan isku dayinaa arrintan galo daahir waagaasi waa ka yar qabsoomay laakiin waxaa dhacday ilka case iyo nimca joker dadkay ka dhasheen waa dad nugul wey social media ku nugul waana ku jiraan waxaana wanaagsan meel walba markii la tago xataa hadday noqoto kaamiradan gadaasheeda inaad xaaskaaga caruurtaada ehelkaaga dadkaaga aad difaacatid baa wanaagsan adigoo oona dad kale ku xadgudbayn hadda daahiri groupkooda waxa ay sameynayaan waa dumarkoodii bay difaacanayaan sababta wiilkan hadda ugu booteynayaan loogu dhaaranayo loogu hanjabayo waxay isleeyihiin difaacda gabadhooda laakiin ayaga qaladaad bay ku jiraan oo gabdha wiilal kale la dhashay xaafado kale degan baa habeen iyo maalin laaf lagaadeynaya runta waxay tahay waxa weeye nimca joker ilka case dad ehel ah dad ayaga ugu sokeeyo beel ahaanna ilka case la dhashay yaa daahir u rufeeyaan daahir wuxuu dareemayaa inuu ka aqli badan yahay beelaha uu ka dhashay ilka case iyo duqbilow iyo ma garanaysaa nimca joker inuu ka aqli badan yahay adeegan karo ma garanaysaa gabdhahooda aflagaadey karo laakiin xaqiiqdu waxay tahay waxa weeye oo anigu idin faray siday gabdhahooda u difaacanayaan aad arkaysaan dhiigga u wada karaya social media waa lagu jiraa war gabdhaha annagaan difaacan gabdhaha Soomaaliyeed difaacan xaqiiqdu dhabtay nimca joker wiilal bay la dhalatay anigu hadda koor waa ka hadlay waa ka gaabsaday haddana waan ku soo noqonaya markaan waxyaabahan arka wiilkan baabajey la yiraahdana anigu garan maayo laakiin de waa nin majaajilista oo Soomaaliyeed waan ka aad baan uga xumaad ma rabi waxyaabaha noocan oo kale inaan ka hadlo laakiin wiilkan qaabka loola dhaqmay iyo qaabka loo handadayo iyo qaabka ma garanaysaa awoodda loogu sheeganayo dareenkayga baka ma aha nin lixdiisa lixaad dhameystiranta ma waa nin curyaane ilaahay ugu talagalay ilaahayna yiri ha lagu cimri qaato way ka xishoon waayeen groupkan aad arkaysaan waana dadka hadda madaxweyne xasan ayagu u durbaantumaya ee taageeraya weeye garan maayo marka Soomaalinimada la doorayo iyo ma garanaysaa dawladnimada xasan dadkan waa ku qanacsanaa wadadu ma garanaysaa maybe groupyadu kula jiray maybe dadu taageeradiisu yaqaanooy nabadii nolol waxa taageerayna Soomaali weyn bay u badnaayeen nabadii nolol aad iyo aad dad macnaha marka isku tashaday oo Soomaalida iyo barmoosarkeedii ku jiro marka waxa way wiilkan baabajey la yiraahdo anigu waxaan u sheegayaa groupkan fiiri haddaad ninkan curyaanka ka xishoon weyseen kolleyda ilaahayna ka xishoon maysaan xaqiiqdu dhabtu waxay tahay baabajey waa nin Soomaaliyeed Soomaali baa garab taagan saan filayana dalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dawladda Soomaaliyeed oo hadda uu hogaaminayo umaleyn maayo dadka Soomaaliyeed ee magaalada degan in qabiil lagu handadayo guryaha loogu dhacayo sida ay hadda soo sheegeen lagu weerarayo oo dawladdii iyo magaceedii iyo waliba beelweynta hadda sheeganayaan anigu ma aaminsanay matalaan oo ceebahan hadda u soo jiidayaan ma garanaysaa la qaybsanayaan anigu ma aaminsan baabajeyna waxaan leenahay Soomaali weyn oo dhan baa garab taagan inaad aro ninta social media isaga jira waa tahay hawshaada iska wado waxyaabaha aad u fahantid ma garanaysaa inay dhibaato noloshaada u keenayso waxaan ku leeyahay ka gaabso kaftan ha gelinin markaan halka baabajey kaga tago waxaa leeyahay ilka case ragga la dhashay iyo dumarka la dhashay social media waad ku bahdelantiin
anigu siyaasad baan cabaar isaga maqnaa laakiin xaqiiqda dhabta gabar dumaashidiina iyo habeen iyo maalin ninka hadda aad arkaysaan gabadhu soo difaacanayn iyo habeen iyo maalin aad u nacamleynaysaan aad habeen iyo maalin magaraysaa aqligiini iyo IQ-giini ku ciyaaray xaqiiqda dhabta waxay tahay kaagaas ilka cas ah iyo kaagaa duqbilow ah iyo gabadhaada nimca jokor taasaa dadku ugu xigtiina difaacatidna kaaga bahan macna kuu samayn mayso qosol macna kuu samayn mayso in lagu tashado social media-na xaqiiqda dhabta waa hadal weeye nin walba waa hadlayaa kartidiisii aqligiisuuna hadlaya macnaha cid af ku qabanayso male aad iyo aad view iyo subscribe iyo YouTube sameynaysid adoo wax wanaagsan soo gudbi dadkaaga iyo magaraysa wanaagaaga soo gudbisan oo ku dhan markaad gabadhaadana difaacanaysid dadkaagana aad ku dhex jirtid Soomaaliyeedna ku dhex jirtid respect baad helaysaa xaqiiqda dhabta sida hadda daaru sheegay anigu dadkaygan ku dhex jira gabadheedana waan difaacanaya idinkuna gabdhihiinni baad u rufiyaanaysaan oo u diraysaan aad iyo dhowr mar baan isku dayay inaan daahir arrinta kala hadlo oo bartan anigu soo galo laakiin waxaan arkay dad sidoo ilka casaada sheegayo rufiyaannimada sameynayo oo xaqiiqda dhabta social media qaabku u shaqeeyaan karin laakiin hadda waad fahanteen baan u maleynayaa qaabku u shaqeynaya iyo daahiri groupkiisa meesha ay ku tashanayaan qaabka u hadlayaan iyo qadiyada qabiilka meesha ay ka gaarsiisan tahay ilaahay qabiilka nama baraan idin leenahay ajaladan muhiimadda ugu weyn waxay ahayd wiilka baabajay oo laga gardaran yahay oo wiil Soomaaliyeed oo lagu qasbayo macnaha in mar walba raaligelin ama laga oysiiyo asagoo oonan hadal khaldan dhihin ayagii gabdhaha caayayeen isla saxayeen habeenii maalin buu daahir caayaya nimca jokor marka aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan u maleynayaa inaad cajalada ka bogoteen ilka casana waxaan leeyahay gabdhaha la dhashay iyo wiilasha la dhashay ayarde kan isticmaala damiirka Allah idinka qaado wiilkiina aad ninka kale ee gabadhiisa caaya uga rufiyaanaysaan joojiyaan ilaahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh